meeshan waxaa ku duugan meydad aad u tiro badan oo loo duugay si arxan darre ah weligay ma arag wax noocan oo kale loo duugay waxaani waa xabaalo wadareedyadii dhagarqabayaasha al-shabaab ee shabeellada dhexe oo looga daba tegay meydadkii khawaarijta oo isbarkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka iska diiday duuleysiga khawaarijta ayaa saacadihii u dambeeyay gaaray dhufaysadii ugu dambeeyay ee gobolka Shabeellada Dhexe oo isku bedelay xabaalo wadareedyo halkan waa deegaan lagu magacaabo ciidka Jimbilow gumaca geesiyaasha qaranka ayaa halkan ku xasuuqay shabaabkii dhibay shacabka Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay waxay meyd kala rogmadeen fagaaraha dagaalka ayuu shabaabku toban ugu aasay halkan xabaalahan oo urkooda loo dhawaan waayay wixii intii aan ogeyno ku xaqiiqsadeen in khawaarijtu aysan meydadkeeda xurmayn dhulkan waxay ka dhigeen kayn ay ku dhuuntaan shacabka deegaankan waxay sanado badan ka hor ka rookeeyeen inay tacbadaan beerahooda geedahan baarku ka baxay godadkan ay fuliyadu fageen iyo xabaalahan ay kobtu kor taallo waa dhufaysadii ugu dambeeyay ee horjoogayaasha khawaarijta al-shabaab ay ku lahaayeen howdka xiga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe laxdii deyrta daaqdaay jiilaal waa dambeeya ayay ku shirbayaan shacabka Shabeellada Dhexe oo shaarkooda ku aasay sharwadayaasha shabaabka Libaan lugcad warbaahinta qaranka Muqdisho